وعنا وناكسن ملكستا أدون كاد كجوكتان هالكني وكالسن تي في ودين كايمانيسا حرونتي سمجالة ميابلسي ولي بسيمبو هذا وكفتنكي سياسة يو علي حراري هذا بل علي حراري أيان ويدين دونا بل ما أنت وحينو هيو يو برنامجكو وحا وكساب سنان دونتو يقابكا دقيسو عن علي كسدو كفتنك سياسة أدو ما هسنتي ياسينو وحن كسو قادم دونا قضبا أدو فربدان هيه dadka ina daawanaya waxa kale oo aan u sheegi doonaa oo ku jira meesha arin aan hore looga baran kaftanka siyaasadda laakiin dadka u noqon karaya digniin iyo inay wax sii ogaadaan sax oo laga sii hortago haye ciidamada shabaab oo meel ka mid ah Soomaaliya dhex maraya oo ku fool leh meel aan tilmaami doono ayaa sirta caynkaas ayaa waxay la qumanaatay in ayna dadkeena ka qarin ee aynu daaha ka furno oo sidayno sax sirta aan soo gudbin doono ee shabaab ku saabsan iyadoo lagu dambaysin doona haye barnaamijka inta hore ayaynu geli doonaa way waa hagaag allahumma salli ala muhammad waxaynu ka bilaabi doonaa Soomaaliya Muqdisho haye sida loo socono waxa jirta qadiyad la yiraahdo qadar ama sacuudiga qadar ama sacuudiga ama qadar raac ama sacuudiga raac haye marka qadiyadaasi waxay ku galgalatay wadamo badan oo geeska Afrika siyaasadoodii haye qaar harulaha ku dartay haye qaarna waxa ku furtay tishuush haye marka mowqifyadii la kala istaagay ayaynu qaar ka mid ah dul istaagi doonaa haye madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya محمد عبد الله فرماجو أي إسقى لو أفرقري وح لو سوق بي إن للصين دولة الصومالية ومدحك هي 6 مليون دولار كأمريكا واو هدي سعودي عربية رعلو هي يا أن هدي الراعي وذنا إن مركز خسارة أي سوف صار دولة الصومالية هي وياه 6 مليون دولار أما العق إن لهر دقو مدحونا الصومالية موح عصبة سو حرو جري هي أيان يدنا إيجي دونا هي حسن شيخ وقت إيران سعودي أي حرير كوتشريان وحي صهر ديان ياسينو 40 مليون دولار هي إن دولة الصومالية أي كل واقضو إن إيران حركة وجرت هي حسن بتشوفينا مركبة حرير كوتشر هرو كوتشر هي دولة جيبوتينا مركبة حرير كوتشر هي لعقتي 40 مليون هايد السعودية العربية أو بلان قاضي مدحونا حسن شيخ إلى هذا $2 ميسين لما هيو عرفت ده بلان بمله يا عرفت حتى هذا استراحيد والبلمشنا كودا قالب بدني بل ما أنت لنا عن سكرها هذا استراحيد وتكون بس بيرس هذه عرفت إلى دول كسر قشان عرفتها وحبك فايد ميسين هي أن 6 مليون دولار أيها فرماتنا للصهور كان وأساس 6 وهو عن صير وكتير هي ضد الصوماليين أياني كدجين إن فرماتشو 6 مليون دولار وديدي أما الدولة باهن أو الصبالة أي حلقن 8 مليون دولار أي ترى هذا مربنا عدين تيدي دتك ديدن إن أرجع أنا ولا بحين أيان أسوق بدين دولار ور عن كسوقاتي ورباهنتا دلالك عربتا أو حقيقة بل إلى الدعوة. وفي إطار الضغوط التي تتعرض لها دول إفريقية قالت وسائل إعلام صومالية إن السعودية عرضت 80 مليون دولار على الرئيس الصومالي من أجل أن يقاطع قطر. وعن الضغوط أيضا الممارسة على الصومال تداول رواد مواقع التواصل فيديو ورعدوي إنك سيل لغة عربية تاعي صومالي تبغى عربية ده تقنا واحد ما بيساون إن 8 مليون دولار دولة الصومالية أيهو عن سيد أيهو عن سيد يا هي تاسرواتاس إن دولة داسي أنت هديدي أيها موقف كذي ولي أنا قدر يسعودي منا هين أي تاي ملح أما دحدحاد هي قدرنا دينعيده أي كدوديسا oo dawladda Soomaaliya durba hawadeeda isticmaalaysa oo xagga duulimaadiyada diyaaradaha marka xiriirkii Soomaaliya qadar isna wali wuu jiraa oo lama oran karayo xiriirkaasi waa la kala goostay iyaguna de kulli lacag bay ballan qaadayaan way oranayaan mardii annaga soo raacaysaan
intaasaan idin offer garayna taas la huba taasna way jirtaa waynu eegi doonaa waayahay Djibouti ayaa markiiba xiriirkeeda xoog geysay Qatar waa war bergi Iran Sacuudiga raacdo u geysay Iran marka Djibouti waa pro Saudi Arabian iyada meeshii adeeda meeshii Sacuudi ku talabsan ay ku talabsanayeen dawladda Soomaaliya haddaan mar kale ku noqdo 80 milyan haday diido oo ilaadan dhaxdhaxaad baan arinta ka noqonaynaa maxaa ku soo fool leh waxa ku soo fool leh 4 sano soo socda inaan xaj ka batay Soomaaliya حجك بالوديد سعودي مeel kale ay ku dagaalamaan bariis baan ka jarreena ma oran karaan aanaan ka jarreena ma oran karaan xajkaan ka jarreena bilay marka xajka marka ugu horeysa ilaahay baa leh waana meel ilaahay lagu caabudayo oo ummadda muslimka oo dhan ay yimaadaan sanad kasta iyagoo waajibaadkaasi gudanaya sacuudiga marka xajka annaga leh ma oran karaan دفيسون بكودية. ودك مسوق لك. مسوق لك. مركز حديث سعودي عربية أنا تقلي بكرين. حج حقيقة هو بسنة سنة. ملا هاد الملك. ملا هاد الملك. مركز دولة قطر. دربوا كتري سعودي واحد هم مسوق لكران سعودي عربية. حج كمان يمكران. ما يمكران. وياه. صومالي هدي العيت هديدو. أيس حريف صو. حج كمان يمكران. حج كدادي. وحور داي أورنشيرون السنة أنا بلغات كون هيدنا. ينوى قايسة. ينوى قايسة. دولة جيبوتي المركز اللي كنا قرنا. هي. سعودي غير هذا. هي. سعودي مركز هذا. دولة جيبوتي وحي اللودي. إن لوكا يسكو هيان يجي إريتريا. أي دولة قدر إلى الصو. عجيب. مركز دولة دي كو إلى السنة بتقول هذا. أي الحرير كوجرت. دولة دي عسكرتي دي. أروت بدي أرد الرعاية. هو بحبها. هي. أبو وركي نقول لها. مدحونا كا إريتريا نن حماها يسونا سيدي سبب وننقر درو مركي دوفتي سو قدر براي مركي دوفين قدرتي هروسو قالوا ماشي ساق بسوي ماشي ساق الوريقي هي جيبوتي بيمك ساو إيجان إريتريانك أي جيبوتي وسيحان ويدي هي وهردوا الذي ويدي هي دبيتنا إيجبت مصر أياتي ولا الله ياتين موقف كسعودي رعدان أنا قلنا هالليا أنا إذا ما كينين نبتقليو إريتريا إيجبوتي نحيد عركي فرمصو في قكران مو يكران أنت مركتري إثيوبيا جيبوتي لهذا الشيء هذونا واحد جيبوتي عرواكي إيجبتي مصر والماشى كان مو يكران با هدانا دمبس كذي كذي والماشي واحد نقطة فرن دجال جيس كافريقيا لا مش هو حال مثل جيبوتي باتري وردل وين وده إيطاليا هي منهين مال أيكون هردمان إيجبتي إثيوبيا أنا وده وكوبا باينا سيدا درادين إيجبتي بروك هذه دبتنا حكون لفتان قيلان قرمة مذوبة وأنا يسوق على وقدر عد بين أنا كسوق على أنا يسوق على مش إذا مو وين لك أنا مركز جيبوتي دي سعودي يقوم با فرت تاعي ومركز كده بتاعتي ما بي حبسن إن قدر أي كسر كويس أو يدو إلى الناس هي يا ورع شيء هي دولته جيس كأفريقيا أي قارنا قدريسين قارن سعوديين قارن وسعوديين مركز خلاف يهرد الحوق له أي كسعودة هي سامينتي دلوقتي واساسي سامينتي قدر بنقول كترنا ويل سوماليا ويل رير جيسا أما الصومال لمبا أيا قرانك ملفي عن كجاري ترتن أبو دبي لقوا قبني ما شاء الله إسكو ذينو كانت صدحات أما الله بعد صوغله تاسو أرهون أكسنة دبيتنا إماراتكي أيا إستجي ويل قدرية لبدو بالسيف تاكل عليه وسم مسافرين ردك يكون قضينا هي واي الصومالي هو تنلب عليه ولا مسعودي رعنا إمارات كمس قدر برضو أنت ميل الصومالي كوه هايسو ماشي كبح بينه ندافع هي مركايركو وحترتنك أوجلي الصومالية هي نط سومالان ترتك على جريو سومالان كم قرة سيد ويلك بدأ وشاقي أو أن وإذا عضها وشاقي الصومالي وكسعد مركز الصومالية أي لوسم مسافرين الصومالية تكون غالية هرجسويمي يركوا هذا وحده أرجع ساقبص مقع الصومالية أيام ماشي اللي يسوي أساسي قدر بقى مقشي هي قدر بقى فيزا تقول صادرته ولما تري أنت نوش هاي شقوات كشقي ستين ينا القدر كل نولات أيام كسيرنا وسقول على هي وأرنا دون أحسن وياه هي يركض تقول كي على تبغى إيربوت كهرجيس أيو يصير كدوف هي
والله سوقته جودها لا دغ جودها وحرين ما هذا وريرك قرانك مeel dheer buu la gaaray tartankii islaha ka qayb yarku hawlba qabsatay haye tartankii islaha quraanka ka qayb gal ayaa ilaa xarig maraya okay Soomaaliland maxay ku eedanaysaa markaa Soomaaliland waxay ku eedanaysaa haddaan Soomaaliland nahay annagu waxaan la jirnaa Saudi Arabia iyo Imaaraadka qadarna xiriirkan u geynay qadartii aan u geynay ayaa doonaysaa adigu inaad tagtid ibadna doomartid haye tayirka horta soo dambi male hal wiilo shaqo tagay oo soo shaqaysanaya qadar koob shaak ma cabaysid in la yiraahdo waa khalad haye haddana xarig loogu daro u mutaysan taasina waa khalad kale leen afba laga oran kara ma tii kartid iska noqo guduhu ku jira haye yarkaas isagii baa garan la wuxuu xiray ilaa dooya biyo haye Soomaalida ba inta wareertay oo arrimaheedii dhameysan kari weeyay oo iyada ay madaxa iyo gurada isku la jirto ay iminka shacabka waxay ula timi wax aan khusayno adigu maqadar baad la jirtaa gudaha gal Sacuudiga tahay maya wax ka baqaya laba isqabta xitaa in iminka ku kala tagaan anigu Sacuudiga la socdaay horta adigu xagaa tahay haye ya arrinka qadar iyo Sacuudigu aad bay Soomaalidu adag bay ka dhacday waaye diyaaradii qadar ayaa hawada Soomaaliya isticmaalaysa haye hawada Soomaaliya markay dul marto ayaa berbere maraysa hadii ilaahay ku reeyay waxay maraysaa boosaasay maraysaa waxay maraysaa Hargeysa waxay maraysaa gadhka warsamaxaad rimiyigi ba arkaya dabeeto Soomaaliland baa iyana dhinaceeda ka hanjabeysa waxay ku leedahay Saudi Arabia gantaalaha dheereeya ee diyaaradaha soo ridi karaya waan la soo gaadhaa way anu aakayaan haysnaayo qadar diyaaradeeda ma soo ridi karna daada baasha nala soo gaadhay Faysal Waraabe ayaa isaguna sidaa ku hanjabay haye way baa la soo ridaa reermiyigi diyaaradii baa batay markaa haye qadar markii maqashay Soomaaliland uu hanjabaysa diyaaradaha soo ridina ayaa awal 3 jeer iyo xumar jirtay 12 jeer bay soo martaa bay meesha maraysa haye kuwa xagga u socda iyo kuwa xagga u socda dabeetana reermiyigi ayaa dawaqaday wiigan oo dhan iyo wiigi ka horeeyay cirkun bay eegayaan waa qadar diyaaradda halka martaba ya waxba haysta waxa tii halka martaba waa qadar ma tii Madagascar hilibka ka keenay jirtay tii sigaarka Seychelles ka jirtay Faransiiska waxa la soo ridaa ka baqdo markaa oo ila wada qadar hortaas ku daraa war bal qadar taana inta aynu kaga baxno haye waayahay waxaan tagi doonaa Pakistan haye baan yaasiin ku geenaya hawl adag ayaa meesha ka jirta safaaradda Soomaalida ay ku leedahay Islamabad haye safaaraddaasi arday aad u tiro badan ayaa ka cabanaya haye oo waxay kaga cabanayaan adeega loo sameeyo oo aan si fiican loogu qaban wasaasi markii uu horsay ardaydu markay apply gareeyaan jaamacadaha iyo fiisayaashaba jaamacadaha gooni bay admissionka ay ula xiriiri jireen iyaga la xiriiri jireen dhinacan kale wasaaradda arrimaha gudaha ay la xiriiri jireen ayaa u tagaysaa iyaga fiisayaashooda toos Pakistan waddanka la yiraahdo safaaradaha fiisaha kama doonaysid waxaad la xiriiraysaa toos baad iyaga la xiriiraysaa toos safaaradda Soomaalida ayaa tiri Pakistan waxaas ma shaqaynaysaa annaguna aanu dheefteena ka helno annagu aanu fiisayaasha ardayda idin dhaxayno haye waaye safaaradda Pakistan waxa safiir ka ah Khadiija Maxamed Makhsuuni gabadh la yiraahdo Khadiija Maxamed Makhsuuni haye Makhsuuni waxa way gabadhaasi waa gabadhii afadii ama marwadii Abdikariim Guuleed oo maraha madaxweynaha galmudug haye xaaskiisa ama afadiisi weeye wasaas waayahay safaaradda Pakistan ardaydii khaatib bilaab ka istaageen haye dabeetana doodoodii bay keeneen safaaradda haye markii doodoodii keeneen iyo in lagala daahayo process misal qof baa doonaya Soomaaliya inuu aado fiisihii ayaa ka dhacay cusboonaysanaya lacagtii baa laga qaadaya safaaraddii fiisii baa lagala maqlanaya muddo haye ardayga markuu soo noqdaba weli jawaab ma nahin baa leeyahay iska joog balba ankaale haye marka waxba laga yaabaa in fiisi ardayda meesha ay kaga dhacdo oo la tarxiilo ama in ardayda meesha ka yacaano markii waxaan u adkaysan culayska badan India iska galaan iska yacaan iyo Bangladesh haye waayahay safaaraddii ayaa si toos ah u iibinaysa scholarshipki haye dastuur iyo sharci iyo dhaqan iyo ummadda Soomaalida way xamili karayaan ma doonayaan inay ku dhaqmaan sharciga dawladdiisa ay aaminsan tahay qofku wuxuu ka doorbidayaa
mid kontrabaana oo musuqmaasuq ka buuxo marka musuqmaasuq aynu taabanayna si looga waantoobo oo safaaradaha kale ay waantoobaan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliduna ay dabagal ugu sameeyaan safaaradaha Soomaalida oo u sheegaan shaqadooda dhabta ah sax waayahay musuqmaasuq meesha ka jira weey injineernimada iyo jaamacadda dawooyinka labadaas aynu eegi doonaa oo iskoolashada ay bixiso dawladda Pakistan safaaradda siinaysa wasaas waxa leedahay مثلا 15 arday oo Soomaaliya oo idinku soo doorataan ayaanu siinaynaa jaamacadda injineernimada muhandis lagu barto iyo ta medicine dawooyinka waxa lagu barto wasaas waayahay safaaradda bay iibinaysaa markaa safaaradda liftigeed injineerinkii 3000 ilaa 4000 dollar ayaa laga siinaya medicine tii dawooyinka ama caafimaadka waxa laga siinaya safaaraddu ka siinaysa inta u dhaxaysa 5000 ilaa 7000 dollar la inaga wax aragnaa marka ardayga shahaadooyinkiisa marks ay fiican yihiin ee tacliinta leh ee aan haysan 5000 dollar ilaa 7000 dollar ma geli karo jaamacadda dawooyinka waa dhibaatay mustaqbalkooda baa la dilay ya وينو متر رخيصة. ورسكرها سدا وأودو. ورسكرها وأودو. شيء بكيس ولا حساب تمام. مركا سفارة دي بدل جورجور تميسا. ورن الحكومة يقص السنة ما متكلا دبده تاجون تضرب كل ستة. أنتي وحيسيتهم بمركا وحلسة. أنت ساكوب حيسة. أو أتقرب يانا. هل كارتو ولا جنا ولا هذا. في زياشة. ينو ولا عق. بروسيسك وراجع دوكمنتس كاردي داردن. ولا عق. شام عضو وحصل ولا عق. أردي بمركا عبطي أو تكتي. قاركودنا وحي سمية المظاهرات. قدومي هوري إيطاليا الصومالية باكستان كل دقن وإسلام آباد أيا سفاردو لحدي تشون بيشان الكوتشون أي جودها دقن جودها حاجة يكون حدا قال كم إذا سفارده أيا حبس اللي قاعد مركا والله حدا ياون قف كده أي سفارد إسرائيل اسمه ونكون يفهم سيها بقى هل كسر الجورجا جل كلا دقيقة صدق تمك بيشان تشون أيا ينشن أرض أوكله oo safaarada ay leedahay arrimaha iyo policy-ga iyo waxa ka soo horjeeda ayaa gudaha la dhigay safaarada ku xidhay qol kamid ah marka loo soo geliyo suunka keen saacada keen fargashiyada keen waa laga saaraya waa xabs caadi ah 3 saacadood ay ardaydaasi huurka ku jireen kuleelka ninka hore gudoomiyihii hore jaaliyada Soomaaliduna 7 saacadood ayuu halka ku xidhnaa safaaradu markay dadka xidho iyada qul u hanjabi mayso inta xidho sii dilmayse waxay ugu yeedhiyaan booliiska باكستان بوليسك مركز تليفون كله درو not only بوليسك معها وح يماده قولين اللي يراهو أرجع حس الله درك كويس بعد شيء إسلام كواحد سميها وحيد هذا قال هذا أيام نوع هذا إن أرجع حسنا هاي يدو الدين تنا مسلم لأنه قاعد هذين أركاس أيام ضدك مسلم أي كعوضان waxaa jirtay yaasiino muslimka laftiisa ayaa markay yeelada doonayeen halfa isu qaadaan oo ay god isku ridaan ay farta isku fiiqaanay markaas yaasiin waa argagixisadu kamid yahay sicirka lagu laado marka ardayda baa loo adeegsanaya leeyahay argagixisaan baan uga shakinay ma oranayaan lacag iyo waxbaan isku haynaayo arrimaha iyaga waxbay soo yaraan dabeetana faraha laga dhigayaa saxiixa laga saxiixay kuwa oo dhan in argagixisada ay kamid yihiin kuwii argagixisada imanaya kuwii arrimaha booliiska imanaya hol balgilidii labada Soomaaliya u dhaxay ciidamada war meesha dabdamisku baan loo yeelay ciidamadii firefighters mooyee intii kale waajib ku dhacay marka ardayda waxa ku dhacay argagixisa ku dhacay safaaradda first secretary-geeda Cabdullaahi Xaaji Daawud baa la yiraahdaa Cabdullaahi Xaaji Daawud second secretary Ali Sheikh baa la yiraahdaa Ali Sheikh واسكو ثيرد كم حلا هذا هنشري صلاة بالله أكيد مش وحكي كذا صلاة قولت بي إسحقان أما المدري ويني هره ويني هره تراول بوكي مركز السفارة هذا لا والثيرد سكرتري وادي ما كنت شقف عم بوهلا ماشي إريه مركز من اللي هذا سكرتري قدن ماشي آدم بالله هذا آدم يو قبل السفيرة دي والمحبرات ورهله وفاميلي ماشي است marka 7 qof ayaa meesha joogo habar wadaag ilmaadeer iyo dumaashi soo inna meesha lagu dhintay
يا ماشي waa lagu dhintay marka safaaradani waa muraayadii ummadda Soomaaliyeed waxa la doonayaa 7 qof ilaahumay isku reer ahaadaan reernimaduna wax xun ma laakiin reerku waa inay u shaqeeyaan ummadii Soomaaliyeed waa sax marka dadkii baa jeclaanaya xitaa reerkaas jeclaanaya laakiin markaynu meel fadhiisano habroodaag iyo abti iyo maadeernahay dadkiina aynu marqood cabayno oo aynu qaybta argagixisada Pakistan ugu yeedhino dadkii way naga yaacayaan dadkuna waa dadkeeni marka maalinba waa meel ba ka dhacaysa ardaydu waxa weeyaan iyaguna waa muraayadii waa ubadkii mustaqbalkii berito kuwa markaad la dagaalantay oo astraahid baabi ummadda waxba u reemaysid ma jiraan waxaan ku baaqaynaa in safaaradaha not only tan tusaale soo qaadanay qurmaahe in dhammaantoodba safaaradaha wasaaradda arrimaha dibadda ay daba socoto oo laga bilaabo horta bal safaaradan calanka Soomaaliya sulan yahay dadka ka shaqeynaya maxay sii hal soo ogaado taas oo saas weey hadii ay wax isu wada yihiin war meeshii qayb idin siiyay waana in loo sheego shaqooyinka ay qabanayaan lacagta la shubayo ee ah in 3,000 ilaa 7,000 laga siinayo ardayda dawayna khasnada dawladda ku dhacdaa ma jeebkooda aadi oo dawladdu ayagu mushahar u soo dirtaa safaaradda laakiin ma safaaraddu inay jeebkeeda ku shubato haye ardayda iyo reer Islamabad intaasan ka oranaya waxa jirta Yaasinow Karachi ay qonsuliyad ka furtay Khadiija Maxamed Maqsuuni haye dabeetana dawladda Pakistan ayaa tiri qonsuliyadina waa sharci darro haye sharci ma dabeetana irida iyadoo shaqeynaysa loo laabay ardayda Karachi oo dhan ayaa imka Islamabad soo shubaya si ay shuruucdoodii iyo arrimahoodii ay halka u dhameystaan waayahay safaaradda waxaan rajaynaynaa in ay ishagaajiso sharciga ku dhaqanto ummadeeda wax u qabato ardaydaana ay hagaajiso inta aynu kaga gudubno waayahay waxaan tagi doonaa Puntland Puntland ayaan tagi doonaa Yaasiin Puntland maxaa ka cusub Puntland waxa ka cusub kal fadhigii 9 ee golaha baarlamaanka Puntland ayaa la furay toddobaadkan ama laba bari ka horba dabeetana waxaan eegay qaabka meeshii xaruntii baarlamaanka meel aad u qurux badan waa diyaabis UNDP-da ayaa kuraas fiican iyo miisas iyo qalab communication-ka waxa qaabilsan ayaa meeshii la dhigay wasaas aad bay u qurxoon runtii aad baan ugu helaa anigu kuraasta biriga hore lagu fadhiisan jiray iyo noocan waa nooc mid la wada soo baarlamaan rasmi ah weeyaan ay meesha u egtay isla dhici karaan meesha ku dhigay kursi la isticmaali karo maaha marka kuraasta iyo qaabka decoration-ka wuxuu ahaa mid aad u sarreeyay waayahay markii la furay kuraasta quruxda badan leh ayaynu eegi doonaa bal waxa ay keeni karto waayahay Puntland wuxuu u baahan tahay kuraas iyo miisas qurux badan iyo mikrofoono mise wuxuu u baahan tahay shaqo adag marka ugu horeysa 19 sanadood ayaa xildhibaanadu 66 ahaa oo aan la ogolayn in la sameeyo xisbiyo kala aaraad duwan oo dadku ay isku soo shubaan 66 waa qabiil ahaan bay u fadhiyaan reeray matalayaan waayahay waana la kala badan yahay 66 ilaa 3 ayaa isku meel maraya isku hayb noqonaya marka yes hadii la yiraahdo iyagu ma badan no hadii la yiraahdo iyagu ma badan wayntooda la raacaa 19 sanadood أين بقى يستاس اللي بتشوف يستاس عنيس يستاس عنيس هي أوكي بيطلع ما حب أنت كراس قروح بدن بس حب إن له هجاتشو كراس تي ميساسك بس كرسي قروح بدن له نينك كفر يسنايا إنه يهاي نين توسن كم معقولة نكاس كفر يسنايا نكو يهاي بمن إله نيكو مو جنبر كفر يسن وينه يهاي نيكو نين ومديس وشقينا ما كرسي وكفر يا مid ay dadku daawadaan aad u qurux badan ninka ku fadhiisanaya ay ku xirantay horta kuraasta rag yar oo shaqeeya oo maskax furan oo aqoon yahana ayaa ku fadhiista boqolka kursi meesha la baneeyay iska buuxsamaya waa muuqaal
niman baarlamaan ayin bay ogyihiin niman tala goosan kara iyo niman shiri kara ilaa gudoomiyahoodu waxa weeye waa one man show waa in madaxweynaha loo tago gudoomiyaha tago miya shiriya sida askarti mise waa kala diraa ما هنو شرنا إن كان دبي بنسك هذا النادي هروسي راعي أنت مقنع سأنا أبشر بقى إن جمر ماشي واحد لقى شريا أما أن أجندوه ومد مدحينا حفيز كيس لقى سوق عضيه والله هرد جايون أخيرا اللي ورقدر يس بالله نيك لقى دريمو إن أي وحب حسيه أو فهم سيه نيك مركاد مشينا دي الصومالي عادي أي بالو قاعد يروح ولا فينيشيه wadada banay baa leeyahay shaqadii waa laga yarin baa leeyahay marka ninka xildhibaanka Puntland si shaqadiisa uu ilaashado reerkiisana u bisho waa inuu de iska noqdaan nin wixii kan iska saxaa taasina waa taa haddaad aragtid meel ay taalo kuraas la isla dhici karayo oo kursi loo qaadi karo inta kor loo qaado mid kale ku dhufan kartid kursi deeg kartid meesha dimuqraadiyad baa ka jirta shaqada waa taala dimuqraadiyadna waa taala waayo ninku wax kursiga ku dhufanaya waxbuu diiday markii la maqlo waa kursigii buu baarlamaanada ruushka isticmaala kuwa Brazil baa isticmaala kuwa Japan baa isticmaala Ingiriiska isticmaala adduunka horba kuraasta isla dhacay laakiin hadda shaqa socota hoosh waa socota كم بطلان مسامير بالوجود دينا عن وضع ما ساسوية مركا أديك بحث واحد جدته أنا ما راح أروح كريم هذا كل حاجة فريق ربيس ما فريق حلقة ساس صفر ده مركا برمان كاسي واقع دليش يقولين أيام كوشة كذا برمان كردن إمتلية بيرها وذا دقة بنتلان وسجال يتبان سندود jirtay oo kala fadhigan uu yahay kii sagaalay soddanaad ayaa yaasiin aniga xagay kulay waxay la ayaan daraa in Ethiopian uu shirka u furo isoo af Tigray ku hadlaya warartaas waa ajaayib waayahay marka yaasiin barnaamijyadeennii hore ee halkan ka baxay ee kaftanka siyaasadda waxaan ku soo qaadanay in General Gabriel laga saaray Muqdisho ama Soomaaliya iyagoo dadka Soomaaliyeed ay ka soo horjeesteen inuu sii joogo Soomaaliya waxaan ku nidhi barnaamijyadeennii hore Gabriel wuu baxay laakiin gaas baa bedelay oo ku shaqeynaya siyaasaddii dowladda Ethiopia si uu raali geliyo dowladdaas Ethiopia waxa taa ka marakacaya sida baarlamaankoodii ka fadhigay 9 ay maanta ugu fureen ama weegan ay ugu fureen in nin Tigray uu isagu hadalkii qaato u furo oo loo tarjumo oo shacabka loo tumo goorma ay iman doontaa in reer Puntland siyaasiyiintoodu ninku doonaya ha noqdee uu isaguna sideena soo kale ay u sameeyaan uu yiraahdo baarlamaanka ma shiri kartaan ama ma fadhiisan kartaan Ethiopia haddaan nin reer Puntland aanu ka hadlin inta qiyaamaha dhacmayso ma dhac ma socoto ما صعد صباح مركان نين كان هذا لي واحد تلمامسه إنه يهي وكيل إثيوبيا ما شاء الله شيء لكن واحد تلمامسه ومدة الصوماليات توص أي مقارنة إن بوتلاند أي قريب كتاعي ولا حكومة إثيوبيا وتباتوي هي ومركز شريس وننشوفه هل بوتشوجا ومركز حفلة أيله سنة جوردي إمساد أو أي تجري وقالين إثيوبيا إن بوتلاند لقى حصل يقولوا سومالام هول كوكتاعنا تشوفه كيسنا وط هي مركز ما مولدنا نورن سيدا ساق عنده لوجو هيا هي بل ددوينا هنوصل بندق هرت خطبتي قريب كمذا هون بريزيدنت محمد علي قاضي بوتلاند مسرات البلاد Murada Abdulli Muhammad Al-Jas Ta'bana Dawlat Puntland كبور أحمد علي حاشي Murada Ahmad Ali Hashi Gudoomiya Baarlamaanka يتكبروا برلماننا يتكبروا برلماننا xubnaha sharafta ee baarlamaanka Puntland ሁሉ የተደረገላችሁ የጎሳ መሪዎችና ሃይማኖት አባቶች culumadiinka iyo simada iyo dadka sharafta leh ka soo qaybgalay xafladda magaalada ee maanta baarlamaanka ugu furayo ሲቪል ማህበራትና ጋዜጠኞች journalistayaasha iyo ururada madaxa bannaan እንዲሁም ዓለም አቀፍ ድርጅቶች
ድርጅቶች يا لا عليا እንኳን ለ39ኛ የምክር ቤት መክፈቻ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። بقى يا مالتي صوت السرعة نفس السرعة البرلمان المطلق وصف الشريعة በመጀመሪያ ለፑንትላንድ መስተዳድርና መንግስትና ህዝብ مركوا إذا معهم دولة بطلان شعب بطلان በአሁኑ በቅርብ ጊዜ በአፍሩን ወታደራዊ ካምፕ حراري عفر بطلان لماذا بطلان الآية በጽንፈኛው አልሸባብ ህይወታቸው ላጡ ወታደሮችና ቤተሰቦች لماذا يقول على يركز وكل شيء أيها الطرق شعب بطلان قرابة يريد በሚስዮናችንና በኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ ስም أنا والله يا جماعة مدير الدولة إدارة إثيوبيا جماعة إثيوبيا ሀዘኔ ለመግለጽ እፈልጋለሁ። تعسيب الله أيها القدر ጽንፈኛው የአልሸባብ ቡድን علي مع ترجمان كيسو تاني كري يا ترجمان كيسو تو ديار يا قلت ده سمع وياه انت انا كبحنا puntland puntland waxaan u rajaynaynaa in ay isku tashato in dhulku yahay dhul Soomaaliyeed Ethiopia waa ummad aan darisnaa saaxiibanahay laakiin ilaa xadka gurigeena gudihiisa inaan soo galino baarlamaankeena dhex fadhiisano sharci iyo dhaqantoona maaha baarlamaanku 66 kaasi waa inay dadku ku dadaalaan in ay sameystaan xisbiyo siyaasadeed oo u loolama doorashooyinka puntland waa inay sameystaan in ay furaan baarlamaankooda oo yiraahdaan 66 baynu nahay muddo 19 sanadooda puntlandna way ballaaratay duruuftuna way sii ballaaratay aynu wax korsano oo aynu wax qaybsano oo sinaan iyo cadaalad iyo horumar aan ka shaqeyno intaasna ka baxayna fariintaasna u direynaa puntland waynu ka tageynaa khaatimo iyo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliland heshiis ayaa haddana mar kale magaalada Hargeysa lagu galay waa khaatimo iyo Soomaaliland heshiiskaasi muhiimadiisu qodobada ka soo baxay waxa weeye in la mideeyo Soomaaliland lafteeda Soomaaliland saddex gasho waa in loo sinaado awooda ama awood qaybsiga Soomaaliland waa in la fuliyo shirarkii iyo go'aanadii wixii ka soo baxay oo ay noqoto xaqiiq dhaba in qalinka lagu dugo waayahay professor Ali Khalif Galayr wuxuu hadii jeer ku celceliyaa in meesha Soomaaliland la yiraahdo ay la rabaan in ay noqoto meel la wada leeyahay ummadda ay leedahay meel la wada leeyahay waxa meel loo siman yahay oo sadbursi sidoo hadalka u dhigay markaanu qaaxino beesha dhexe quri aanay meel ku shubane la eego dadkii la fiiriyo oo ummadii iyo dhulkiiba si fiican wax loo qaybsado wasaas waayahay waxa hawl ka taagan tahay marka ugu horeysaba horta khaatimo dhowr madaxweyne ayaa soo maray laba madaxweyne oo waxay iyagu qoryahoodii iyo hubkoodii iyo ciidankoodii wata ay u galeen meesha la yiraahdo Puntland Puntland waa Bidin iyo Garaas Ahmed Garaas labadaasiba waxay galeen iyagoo hubkoodii wata Ahmed Karash iyo labadoodba waxa galeen meesha la yiraahdo Garowe wasiiradii labada halka ay dhig madaxweynihii kale Ali Khalif isagoo wuxuu u galay Hargeysa isagoo laakiin aan qori wadan isagoo bilaa qori la galay isagoo bilaa qori isagoo ciidanka waa ka tagay SSC Saleebaan xagala toosiya ayaa isagoo macquurihiisa la galay sida wala tagay wasiir waa ka yahay si kastaba ha noqotee dadku inay soo yimaadaan oo heshiiyaan oo ay nabad dhaliyaan cid diidi karta ama ka horma karta ma jirto waa wax wanaagsan waxa uun ay fartu ku gudan tahay sida wax loo kala qaybsanayo sida wax loo kala qaybsanayana ciyaar maaha dadka qaar waxay aaminsan yihiin in ay meesha u soo dagaalameen oo ay ku soo dhinteen oo ay dhulkoodii tahay oo Soomaalilandnimadu ay tahay beel soo halgantay
ومجاهدين فربضان له ودول كود حرية إمن كان مريه قوسانيسا مركا عيد كلا أطراب المرها أنا لما يشان دقيني أنا دللا قوسنا ويكون ألقتها إن أي مبدأ قاتان وماتوريتيga oo rag laga xuriyay bas dad kale oo kamid reer Soomaaliland oo wala beesh dhixin waxa aaminsan tahay in meesh la wada leeyahay oo ay tahay in loo sinaado oo cadaalad la dhaliyo laakiin kuwaas waa yariin inta mujaahidnimada aaminsan ayaa aad u far badan wasaas waayahay qolooyinkii hore ee sool iyo sanaagii cayn ee hore u joogay ee dawladda Soomaaliland kamid ah ee ka mid yahay Salabaan xagla toosiye wasiirka arrimaha gudaha Faratoon kuwa baarlamaanada ku jira indha ninka la yiraahdo oo kale dan soo qaadan in Cali Koore rag badan oo wasiirka arrimaha biyaha raggaas oo dhan waxa iyana imka ku soo kordhay ay u arkaan Cali Khalifi kooxdiisu inay xeebti ku soo kubaarayeen meesha wala isugu يا أيه وقت الليل لفتيدو أنا قاعد ماشي كهذه سعبني أيه يقول قلمان سيدتها وسك حرقونسا إن السوق شو نوقت ما ضماشن أروح حس عقل بح وأدلو بومبول ما أيه هل كهرت حنتن أيه كتير سياسة أيه كتير أيه ياسينو كتير أيه ميل ودعبة خاتمه وحكرو إيمان كرتا على خليفة كوي يسوي مادين نبض باني اللي قاعدين سومالن قولا كره أيه أردن دونتا waxaanu nahay garabka khaatumo ee aan heshiiska ogolayn ma ogolin dibadna garabkaasi iyana qoriyo qaadanayaan oo dagaal iyo hawl garabka cadaalad la bixi doonaa waxba la bixi doonaa dibadna waxa la ordaa hadana khaatumo kale ayaa xagga jirta hadana waan kale nabad kale heshiisiin dambe hadana qoladaas soo galaysa khaatumo tri hadana baan ووضع دماني ومسلسل هذا أضق إنه دماده تربى قارب بدن بقالنا ولا على خليفة نمتنا هي على عيسى وربع داقي هاوشن بكدم بيه خاتمه أي سو كجوس قبصدي كان جاب صدي إن وطلع على خليفة قاطع هي وديدي سو هي مركا أنا هرجيس تجي ما يبتغي هي مركا دبولر تخاتمدي إن لبن مبدأ أي كلاقاتين هي وقول أي ديرسي ويهرو قشي مش هرو قشي هي وياي وحقيب سجى أي إنه يقدرنا هي سومالان مثال يربان كسينة هي ما دام برامج كانوا هي يصيروا كفتن سياسة أرين كفتن كصدر دونا هي سيلايو أحمد محمد سيلايو مدحونا سومالان يقولكوا أدركوا هاي مدحتوها هيست محمد حاشي أي سفر وضع قريب هي دول كي مرة يقول لغاني هي طبعا خير بوهيدين هي خير كمرك وهيدين أي سيد عادة هيد أرداب الفريسية هي واللو جوجلي هي وحي الخير كوي هيين والله كره وحي الجسين أنتو أي هيين والله ما هكرن والله صدق ماشي والله صدق هي يتنافر حش على رويدك Soomaalidu dhaqan bay reemigoodu leeyahay وهذا يشير مركو عن طلبه كان حلوين وحبا الله هنبيا وريرك الله ريبا إلا دتك لك هذا بيا مركا هنبضو ميل والبق عنت اللي مجليو قيب لم باكر أسلوبته يا خاق الله عنه قيب تا الله ما تامنيه أنت كو آدم أيات يهرب كسر مدعنس هي تبي مركو عن طلبه كان اللي جتي أي الله بلا عن طلبي هي محمد حاشي أي بهيل بك الدبض وقبته دبته هي odaygu ishu buu ka eega ayar buu xoogaa iska cunaa odaygu markuu arkay in waa nin dhaqanka yaqaan waa nin weyn in meeshii la gaari jiray la gaaray oo aan lagu sii talax tagin ayuu faraxasho markaas yiri alxamdulillah adar maxmud bas marka reerka reer baa naga dambeeya inta reeb maxmud labada canbo u buuxano uma joojin markaas Sinaya oranaya adar u kalide adar waa sidee maxmud naada bashigir wasida jiray haye marka Sinaya wuxuu arkay in maxmud kullay haduu qayliyo Sinaya daanu qaylinba aanu xog ka tagay inuu xeeradaan wax ka tagay dabeetana intuu faraxalkii dib ugu soo noqday xeeradii ayuu wuxuu yiri adar ma kolba la oranaya Sinaya ka har saxanku faaruqa ayuu cilmi doonaa ما عد بميل كداونس أركيس سيلاي إنه مرة كفرحش ماي وحلورنا يلا بدينين حيرة الدمية سؤال فهمت ما مركا حيرة اللي بدأ أن يكون فرديان لين مايو على خليفة
inuu ka warkeeni doono oo oran doono labadan nin waxbay soo reebi doonaan iska sug oo meesha loo sinaado oo aad buu adag tahay waa adag aad lama bisla waxa la mariyaa 27 sanadood 27 sanadood xeeradii labadii nin baa wali wada cunayday iyaga wali way dijinay saas ku socod kale ay ka dambayso iyo in cid kale meesha ay la wadaagto taas waxay u baahan tahay oo qaadanaysa waqtiga khaatumada intaasan kaga baxaya waayahay waxaanu eegi doonaa arrimaha dhinaca faniga ayaynu mar ku noqon doonaa horta arrin baa jirta Hargeysa timo jarayaasha ama ra'iislayaasha ninba sidoo u yaqaan ayaa rag baa muddo dheer ra'iislayaalaha muddo dheer waliba qolooyinka gaboyaha leh ayaa professional iyaga shaqadooda anu ilaa yaraanteedii ayaan arkay iyaga shaqada iska lahaa oo inta badan rag professional oo qaarkood markii dambe Carabaha u dhoofeen ayaan xasuustaa shaqadii baa lagu soo kubaareeyay nimankii shaqadii la isugu yimi waxa la yidhi show biriga anu shilin xaan bixin jirnay lacagtii shilimada ahayd imika dollar baash والله سادك يوشون بالغنى وش ويس تبيه هذا وديد أي مد حقنا كجرعسة سادك وش ويس مرة والله هذا ما يسمع وكسر تالو جينا كي مريكنك يكي الشينا يكي هنديدا ميل بالغو ترى كذبت هذا كذبت هي وماشي يد سيهر مرتين هي مركا نمك هي شغلة كسوق باري بالي هي كلا سوماليا معها وحكوا سوق كباري إثيوبيان توبيان أورمو أيوة ركوز حكر ماين هي سيدا أساس بلينو وأورمو هي هذه تي كمان جرب مرة بتاع صوت برع بكاك سيري دولار كأردن لما كان سوتي لما كان كهلي جبيو بناك تاجين دبدا لو صوتور هي حتى شغله دي أيون كقدم والله وقلع مركا حقوق دودي إيو أريمه هودي كلا أردن أينو دوش كم رادير سومالنا si guudba ayaa hadana shaqooyinkooda imka loogu tagay ayaa loogu tagay nimanka godkoodii ayaa biyo u soo galay nimanka wallahi qormada ka qabatana yaa ka qaban kara qormada yaa ka cilmi markaan waxaan lahaa walba reerka hadii la cuno qabatay yaa shaqadooda lagu dabatay balda shaqooyinkooda ayaa lagu dabatay yaa asaasi taasina waa taa reer burco ayaynu eegi doonaa oo doonayo barnaamijkeenan intayna soo gabagabeen anigoo arrintii aan ka dhawaajiyay ee shabaab ahayd ay inoo dambayn doonto ayaan burcatiga doonaa dhinaca magac bixinta reer buuco ayaa bilay ku qaban baa leeyahay magacyo waa yaqaaniin xagga naanaysaha iyo xagga magac bixinta aad bay u fiican yihiin kula heliyeen waa tii shuban biyood iyo meelaha ka socday shuban biyoodku waa qofkii shubmaya oo dee finish waxa weeyaan dhacaankiisa dhaba soconaya dabeetana nafsa ka baxaysa waayahay kiniiniga shubanka loo cunayo waa inuu noqdaa mid shubanka joojinaya horta marka qofka marka hore shubanka ku joojinaya faleebooyinkan iyo guluug hoostana nafaqadii kala jirta ay qoynaysaa jirkii ay qoynaysaa Soomaa kiniiniga hadaba shubanka waxay u bixiyeen fur iyo xanjo ay fur iyo xanjo yani waxba ka iman maayaan waayahay dumarka buurbuuran waxay u bixiyeen DB Wall waa shirkadii kreesatay berbera waayahay ragga buurbuuran waxay u bixiyeen gudida abaaraha saas u dejinayaan oo waana niman balbalaarin baa leeyahay nimanka abaaraha waayahay xaaraanta waxaan ka hadlaynaa bisha rabadaanta cuntada xaaraanta la meelaha lagu kariyo waxay u yaqaanaa reer baa leeyahay qaaraan taayada ma fahmin dumarka hadaba xaaraanta kariya oo meelaha de si kontrabaan ugu kariya waxay u bixiyeen xalimo gobaad show show qarsoon waa showgii xalimo gobaad ya qof tuug ahaan jiray oo laga yaabo hadda inuu dadkiisa iskaga jiro dhinac kale waxa u yaqaanaa yaasino xildhibaan hore يا أي اللي كسر قلت حكومة السيلايو وحوي قانان جودي سرع ها هذا تانو كهل حوي توتا تليفونات الضفطة أما الله عرفت أما الله بحثته وحوي قانان ربعه كوحدة حديها جيس يا مرق هذا مغش حديها جيسك أيا هلاي وحوي توبة تليفونك يقدفت يا رج والله هلاي ها هي وياه إنه قبل برنامج كنا أنا هذا
gudageli doona ayaan waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo sidii hore baan dadkeena daawan ugu ballan qaaday kooxda al-shabaab oo dhul ay mareen iyagoo guuraya aan rabo in aan deegaanadaasi dadkii gaarsiino waa sax kooxda al-shabaab af urur meel la yidhaahdo ayay soo weerareen maal dhaweyto dad tiro fara badan ayay ku laayeen oo ciidamada puntland sax dhibkii meesha weli wuu taagan yahay haddaba xalay saqdii dhexe ayaa ciidamo guuraya oo al-shabaab oo buurtii ka yimid ay soo dhex mareen dhul ama deegaano dhinaca ceergaabo aan idhaahdo aagga meesha la yidhaahdo hadaaftimo ayaa lagu arkay 80 nin oo aad u hubaysan oo kooxda al-shabaab ayaa dad reer miyiga weydiiyey meesha ay ceergaabo ka xigto ceergaabo u socdaaba ilaa anaga wax ragnay dabeetana dhinac bay ka mareen degmada dad baa markaa soo arkay oo ay la hadleen oo ay directionka weydiiyeen nimankii baabuur baa u timi dabeetana dhinaca ceergaabo ayay afka saareen nimankaasi waxaan uga degaynaa ummadda deegaankaas oo dhani in ay standby ay galaan oo ay ka feejignaadaan in maamulka Soomaaliland especially uu la socdo dhaqdhaqaaqaas oo ah dhaqdhaqaaq aan la dhayalsan karin oo dhibaato keeni karaya xogta dhabta haddii aan sheego waxay u socdaan oo ay tegayaan meel la yidhaahdo beer burco xagga ka toosan marka buuraha golis ee taxan dhinaca sanaag ceergaabo ayay ka samaysanayaan fadhiisimo waxay kala tegayaan beer meesha la yiraahdo sida macluumaadkan sirta aan ku hayno cidna ma dileen cidna ma maagayaan laakiin waxay doonayaan meel ay degaan in ay fadhiistaan waxay muujinaysaa in khilaaf uu ka taagan yahay iyaga iyo dadka deegaanka galgala marka in qayb kamid ay soo guurto ayaa meesha ka muuqata marka dad la fasiro socodka caynkaas habka ciidan dadka area jooga ee shicibkii isma difaaci karayaan oo ma aha ciidamo waa dad qoriyo wadista sitaan marka de ciidan haysata baa ka hortay karto ciidamadaasi ilaa 80 qof oo hubaysan ayaa iminka la ogyahay waxa ku daba jira kuwa kale oo kuwan marka ay meesha sii tagaan ay iyana ka daba iman doonaan waxaan dhageysan doonaa cod haweeney hadaaftimo joogta oo dadkii soo arkay ama gabadhii soo aragtay mid kamid ah iyadoo la joogtay oo magaceedana aynu qarin doono si aanay dhibaato ugu iman laakiin codkeeda si dadku ay u rumaystaan aynu u soo gudbin doono marka bal aan u soo gudbiyo haweeneyda anagu xalay markii aan yara jiifsanay oo tobanadii ahayd baa gabadh odaysa magaalada timi ayta nimanka hala kale marayaan waana rag haddaan qiyaasnay ilaa 80 marka warkii aan qasti gabadhii nimankii bay ku soo dhexdhacday nimankii waa la kala yaacay meesha hub lagu ma haysto rag hub ma haysto nin aan hub haysanina dagaalami maayo oo afartii qori oo la hayay nin waliba ciidamo iyo dhul baa lala aaday waa tidina ciidamayn jiray oo afartii hub wada afartii qori oo haray dawaa qola walba meel baa meeshii la hadba furin oo la joogay bay la tagtay hadday la tagtayna de maxay haytay meesha waxaan joogaa horta hadaftima waxa jooga waa ciyaal iyo dumar yaa faraday oo kicii waay ragii waa ka tagay waa in dhooftay iyo in xeebaha jirta iyo in hargeysa taagan iyo in xamar taagan iyo inta afar kaleena waxa joogaan la baran la boosaaso horta waxa jooga hadaftima waa dumar iyo caruur xaafadina waa maran tahayba xaafad waxa u soo hoyda marka 10 guri dhaxsid hal guri lagu jira oo xaafadi waa cidla waa laga wada dhoof marka horta dhibaatadaasi waa jirtaa midda kale waxa la idin ragii goorta yaaceen oo maxay kula hortagaan nin hubaysan oo bombadiisita oo qorigiisita oo baadkiisita oo wax walba sita lama dagaalama kartid alqasti nimanka haddaan u darninay nimankaasi waxa weeyaan kulli waa niman reer waqooyi ma aha nimankii koonfurta way sababta baabuur baa ka daba marka waad maqlaysaa warka Soomaaliya baabuur baa markaa nimanka u timi oo qaaday ayay gabadhan leedahay waxaan markale uga digaynaa dadka barnaamijkan daawanaya ee ku dhaqan areadaas laga sanaag ilaa
togdheer in ay ka feejignaadaan oo ciidamada ammaanka ay waliba Soomaaliland ay soo gudbiyaan haddii arkaan ciidamo ama dad wada socda oo hubaysan oo fara badan oo ay ka shaqeeyaan haddii arkaan in warbixintaas aanay guryahooda la tegin la aamusin ay markaba u gudbiyaan xukuumadda si markaas looga hortago waa dhibaato taagan oo xaqiiqo ah oo dadka shacabka ku keeni karta dhibaato in xasuuq lagu sameeyo waxaan ilaahay uga rajaynayaa in dhibaatada iyo mas'uuliyadda nimankaas ay wataan in ilaahay balmariyo iyadoo wali gabagabadii imka lagu jiro bisha Ramadaan barnaamijkeena Yaasiin maanta intaasi ayaan ku soo koobaya way cali aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadsan tahay waan ugu Yaasiin Ducaale waxaan kaga tagayaa sida iyo nabad gelyo